nin boqor ah ayaa waa boqor muslima waa bariga gaalada iyo muslimiintu ay dagaalami jireen isagoo aad u cadhaysan ayuu qasrigiisii soo galay boqoradii baa ku tiri boqor maanta maxaa dhacay adigan aad u cadhaysane wuxuu yidhi ceeb buu inankaagii curad ceeb buu noo soo hooyey buu yidhi ceeb waa maxay ceebtaasi bay ku tidhi markaasayuu ku yidhi ciidankii baan u dhiibay oon uga dhigay maaragtaan qaa'id hogaamiye wuu soo baxsaday oo isagii ciidankii muslimiinta waa laga adkaado waa la soo jabiyey yuu ku yidhi markaabay ku tidhi hadalkaa sax maaha yaa soo sheegay dee waa la soo sheegay buu yidhi ile dowlad weeyaan dhisane warbixiyayaashii iyo maaragtaan sirdoonkeennii baa warkan keenay markaabay ku tidhi arrinkaasi waa been waa waxba kama jiraan inuu been yahayna hadalkaasi uu dhab buu noqon doona waad arki doontaa bay ku tidhi haddana 7 maalmood kadib waxaa soo galay boqorkii oo aad u faraxsan oo qoslaya haye bishaare bay tidhi maxaa maantana aad haysaa war markaasuu warkii maalintii hore aan kuu sheegaya waa waxba kama jiraan buu ahaa inankeenni uu soo guulaystay gaaladiina uu jebiyey khaniime iyo xoolana uu soo wadaa uuna soo galayaa maanta ilaa berriba buu waddanka ku soo noqonayaa buu yidhi markaabay ku tidhi warkan dambe ayaa saxa markuu inankii nabadgelyo uu ku yimiday guulna maaragtaana ugu bishaareeyey inuu gaaladii jebiyo gaaladii ka guulaystay ayay islaantii baa marka boqorka islaanta ku yidhi inankaagan maxaa inaga dhexyood ku ogeyd balii sheeg markaabay tidhi inankayga maalintaan ogaaday calooshayda inuu galay hadal laqwiyana waan iska ilaaliyey luqmad xaaraana afkaynaan geliyana waan ka dhowray tidhi maalintii aan dhalayna maaragtaane aan daahirsadayna ma siinin naaska oo ma nuujin waa markay ka baxday dhiiggii dhalmada ay ka maydhatay ee 4 baxday naas kuma qabanoo uma nuujin bay tidhi ilaa weyseqab waan u weyse qaadanayay tidhi markaan weysaystaan naaska nuujinayo bisakaan u qabanayay tidhi marka ilmaha tarbiyadiisii halkaa aan ka soo bilaabay inuu cadow gaala uu ka soo baxsadaa oo la soo jebiyaa waa mustaxiil oo waxaanan dhici karayn ayay ku tidhi markaas jiilal wanaagsan oo diin loo dabeecad fiican leh oo dhaqan wanaagsan leh dadka soo saara waa dadkee ma ragga may ragga maaha ma madaxda may madaxda maaha ma dhakhtarada may dhakhtaradana maaha ma maalqabeennada may maalqabeennada maaha ma reemiiga may reemiigana maaha dadka jiilasha wanaagsan soo saara ee tarbiyadeeya waa haweenka weeyaan inaguna haween baa tihiin kulankan waa kulan haweeneed waa haweenay reer leh iyo inan yaroo iyaduna beritoola ku socota maaragtaan hooyo inay noqoto si kastoo gabadhu ay wax u barato hooyo unbay ku dambaysaayo ogaada hooyo gabadhu dhinacna uma dhaafi karto ragguna aabba dhinac uma dhaafi karaan inantuna hooyo unbay ku dambaynaysaa lidaalika waxaa inala gudboon inaan baranno intaanaan nool lahayna sideen ilaahay u caabudnaa in u raalligelinnaa intaan dhallinyarada nahay maxaa lanaga rabaa maalintaan reer yeelannana maxaa laynaga rabaa jiilal wan wanaagsan waxaa soo saara waa haweenka wan wanaagsan jiilalka xunxunna waxaa soo saara waa haweenka xunxun weeyaan ilaahay innaka dumar xun baa inama siina hablo wanaagsan iyo hooyooyin wanaagsan baa ilaahay dhulkeenna ilaahay uu dhigay waataa tarbiyadda hooyadu saamayntaasay leedahay 2 nebi oo ululcasmi labaduba ay ka mid yihiin waa nebi nuux calayhi salaam iyo nebi ibraahim 2 wiilay kala dhaleen baa labadooda wiil bay u yeedheen midna wiilkiisa badbaaduu ugu yeedhay midna wiilkiisa inuu gowraco barayo ugu yeedhay dhegaysta labada qisadood nuux calayhi salaam waa rasuulkii rususha ugu horreeyey weeyaane risaalad iyo diin loo soo dhiibo markii qoomkiisa la yidhi waan halaagaynaa ilaahay uu ku yidhi qoomkaaga waan halaagaynaa adiga iyo ehelkaagay wixii ku raacayna doontaa saar wixii doontaa ka hadhana waa la halaagayaa markii lagu yidhi ayuu nebi nuux calayhi salaam inankiisiiba u yeero wuxuu ku yidhi yaa bunaya arkab macnaa wiilkaygiiyow doonta nala soo fuul buu ku yidhi doonta nala soo fuul walaa takun maca alkaafiriina kaafiriinta macooda ha noqonine
marka inankii baa hadloo yidhi qaala sa'aawi ilaa jabalin yacsimunii min almaa buurta ayaan biyaha ka fuulayaa oo buurtaasaa biyaha aniga iga ilaalinayso imaba soo gaadhayaan buu yidhi aabbuhu markuu ilmaha la hadlaayey yaa bunaya ereygaabuu isticmaalay erey naxariis ku dheehan oo ah wiilkaygii iyo inankaygii yaraayow markabka nala soo fuul buu ku yidhi kaafiriinta macooda ha noqonine inankuna markuu jawaabayo xataa aabba ma odhane wuxuu ka bilaabay hadalkiisii biyaha buurtaasaan ka iman oo iga celin buu yidhi aabbaa u jawaaboo ku yidhi qaala laa caasima alyawma min amri illaah maanta amarka ilaahay adduunyada ka dhici doona cid alla u naxariistay oo badbaado mooyaane ciduu ilaahay u naxariisan cid kale oo badbaadaysa ma jirtay cid alla u naxariistay unbaa badbaadayse aabba maya maad nala soo fuushidaa labadoodiioo hadalkaa isku celcelinaya hirarkii biyaha duufaanka iyo dabayluha ay wadeen baa labadoodii kala dhex galay deedna markaasuu halaagsamay inankiisii waa markuu nebi nuux calayhi salaam ilaahay buu la hadlo waa kii lahaa yaa rabbi o adigii ii ballan qaadee igu yidhi ehelkaagii iyo dadka adiga ku raacay waan badbaadinaynaa yaa rabbi muunan inankan ehelkayga ka mid ahayn markaasaa ilaahay ku yidhi innahu laysa min ahlika innahu camalun hayru saalixin falaa tas'alnii maa laysa laka bihi cilm innii aciduka an takuuna min aljaahiliin ilaahay baa ku yidhi yaa nuux kani ehelkaaga ka mid maaha baa lagu yidhi waayo camalkiisu ma wanaagsanayno ilaahay abuurayna ma garan oo ma rumaynin adigoo nebigiisii oo aabbihiiyana kuma raacino kuguma dayan markaa kan ehelkaaga ma aha baa lagu yidhi falaa tas'alnii maa laysa laka bihi cilm weliba nebi nuux waa la canaantay baa laydhi ilaahay baa canaantoo ku yidhi waxaanad oqoon u lahayna adigu haska kay weydiin innii aciduka an takuuna min aljaahiliin waxaanan kaaga digayaa kaagana nasteexaynayaa inaad jaahiliinta ka mid noqotaan kaaga nasteexaynayaa baa lagu yidhi halkaasaa nebi nuux calayhi salaam iyo inankiisa ay ku kala tegeen inanka tarbiyadda ilmuhu tarbiyadda hooyada ayaa saamaysa hooyadii baa gaalad ahayd kaafirad bay ahayd gaalnimadana aqalka dhexdeeday ku qarsanaysay inankeygana waxay ku odhan jirtay orodoo danahaaga qabso odayga qayladiisa ha maqline bay ku odhan jirtay